هيقول عننا نعم بس المتين كل ملاسي جون حاليا طيب أنتي دي مارا نعلا وحاسين كيالي بحا فيري محاك عقلي أورتا محاك عقلي ناق نمريل واي سمست هبرد علينا تهين فيري هبرد علينا تهين واي بالشرفي أفكار إذا كعرتي إنني خلني صوت قلني أكبر وحمها سأشان كلا حواي مصعب أرد كارميا مسكر مكلا كوجودا سأشان بدل كرو جانك من الفكرة أوكي هاي أوكي سأشان الدرايف ده كنت يا أوكي حيوان هل جانس قبلية وسأش أو معرف بيكر الدرايف ده يتم كجواب يا نايال هاي عنني أنا مجالكي مكسر خاطة عملان ساقي سأصدق إلى هذا أفريز فادي أفريز فادي أنت كعلى الماء هاي عننا أصبح يالاتي الجرجة يركي هاي عننا نعم بس المتين الملاسي جون حاليا طيب أنتي إيه مارا نعلا وحاسين كيالي هاي ناقول بحبرت إنه ما ليس يستاكتو ملاسي أبو ضربه أو سلي أنا دركي أسنجري عسكا عنا عايدة هذه خانة هرب على وجهه أنا حشود leedahay adiga kula hadlaya Trisha baadiyo hadaa xishood leedahay adoo oolaad haysto oo alxamdulillah maanta inta oolaadta ku farisay inta qarisay adeesid uura yeeshay waxa inta iga nuuxsaday eedadiisa waxa dhahay inta wax iga nuuxsanay fadlan haddaad igu cusub tahay subscribe ka saar gambaleelka furo like share comment ga dhiirigelinta intaba waa xaqiina daawada asxaabta qaaliga maxaa cusub maxaa caalamkii Trisha baadiyo Tina Fey iyo qaar kale badan cusub oo la yaab leh iyo duumada isdaba socoto waa la yaabaysaa waxa si kulul loogu kacsan yahay oo la jafaya Trisha baadiyo iyo Tina Fey oo dagaal ka dhex qarxay iyo qaar kale badan oo social media caan ka ah dagaalkaasi oo la sheegay inay ku soo biireen Amiir Qurux adno iyo qaar kale badan reer Malaysia ah Trisha baadiyo oo afka furatay waxa la sheegay dagaalkaas waxa dhaliyay wareysi ee bixisay Trisha baadiyo oo wareysanayso Amiir Qurux Trisha baadiyo waxa la weydiiyay yani ilmo kale ma hore u soo dhashay yani ilmahaaga kale oo hore u dhashay maxaa u qarisa oo kale Trisha baadiyo waxay tiray ilmahayga kale waxaas haleega bedel amal hay weydiinin wareysigaas bareefadu yahay midda oo hadeertaan nolosha hadeer ku jiro oo kaliya ka jawaabi kara oo ka hadli kara qofka bini aadanka horta min asaasan asiga xur ah qof walba waa damiirkiisa iyo aqligiisa iyo garaadkiisa wuxuu siiyo qof walba naftiisa oo mas'uul ka yahay qof walba naftiisa waxa uu sameynayo oo ka hadli kara qof kale shakhsiyadiisa iyo wuxuu ka hadlayo iyo wuxuu sameynayo qofna shaqo kuma lahan laakiin hadda Soomaali nahay waxa waaye igu mashquul kugu mashquulo daawada in kasta oo laga fiicnaa Trisha baadiyo inay qariso ilmaha ee hore u soo dhashay maadaama ay tahay hooyo ilmahana nimco iyo hadiyad oo Ilaahay bixiyo oo yahay in ay qariso ma ahan maadaama oo ilmaha hadda ay u joogaan ee Nuurdiin u dhashay ee sheegto xataa markay walac tahay markay uur leedahay ee tiraahdo aniga ma sha Allah uura leeyahay Ilaahay hadiyad isiiyay cunugaana dhalay muscaba dhalay inay tiraahdo oo ilmaheeda kaleentana yani ay qariso ee ayadana ay rabin inay dadka hortooda ka sheegto ilmaheeda faaleen in sharaxaad ay ka bixiso shakhsiyadeeda ayada xur u ah laakiin hadda Soomaali nahay waxa waaye igu mashquul kugu mashquulo qof shakhsiyadiisa iyo noloshiisa iyo wuxuu sameeynaa iyo wuxuu rabo waxa lagu siinaa dagaal waa la kala dhigaa waa la kala goobeena waa la rifaa qof walba meeshuu ka gaaro uu ka jiida uu ka khaniina uu ka goosana marka hadda Soomaalina xaalkeena waa taas qofka bini aadanka wuxuu damiirkiisa siiyo garashadiisa iyo garaadkiisa waxba laga ma bedeli karo qofkii jecel inuu ilmihiisa ku faano asiga u taalaa qofka qarayo ilmihiisa yani garaadkiisa iyo damiirkiisa iyo aqligiisa siiyeen inuu ilmihiisa qarsadana asiga u taalaa kolay aniga waxa dhihi kara naagti ilmaheeda qariso iyo naagti ilmaheeda ku faanto iyo naagti aan ilmo dhalinbo yaraan meel ma taalo
ilmihii 2008 2009 2010 la dhalay qaangaar ah naag 90 dhalneed oo naag 92 dhalneed naag 2000 dhalneed naag 98 dhalneed waa yarahay meel lama soo fariisan karto yaraan meel ma yaalo naagta ilmaheeda inkirto iyo naagta ilmaheeda ku faanto ilmaha waa nimco iyo hadiyad uu ilaahay bixiyo dadaa ilmo ku raadinaya lacag dadaa ilmo ku raadinayo yani wax walba biay tariiqad sida ilmo ku heli lahaayeen ilmaha waa nimcada rabbil caalamiin ilaahay qofku uu jecel yahay oo khayrka la rabo oo ilmo siiya oo hadiyad ugu dhigaa alxamdulillaah ala nicmat rabbil caalamiin naagaha ilmahooda qarinayo oo iska dhigaya naag yar inay taho kaleente ilmo ina dhashay oo kaliya da'daada kuma xirno inaa ku weynaanaysid iyo inaa ku yaraanaysid da ahaan ilmo kuma xirno da'daada iyo ilmaha aad dhasha iskuma xirno ama ilmo dhal ama ha dhalin ama hal da'dhal ama 10 da'dhal kolay da'da ay jirtid waa jiraane xiligaa dhalatay waa dhalanay waa yarahay naag meel lama soo fariisan karto naag yar oo hadda social media isticmaalaysa ma jirto naag 90 dhalneed ama 90 ka hor dhalneed oo 98 dhalneed oo 2000 dhalneed waxa meel kula soo fariisanay waa yara ilmihii 2008 2009 2010 la dhalayn waa qaangaar marka mash macquul alcamuum dagaalkan looma kala harin oo yani dagaalkan looma kala harin dagaalka Atriisha Baadiyo Tiina Faray Adna Amiir Qurux iyo qaar kale oo social media caanka ah aalada TikTok oo qolol ka soo furanayaan Atriisha Baadiyo oo Atriisha Baadiyo dhahayaan naagta maxay ilmaheeda u qarinaysaa Atriisha Baadiyo wax loogu bixiyo ilan weligeed ma ilbaxayso qofka Atriisha Baadiyo u bixiyo ilan inay reer baadiyo too weligeed ilbaxeen inay ogtahay Atriisha Baadiyo way xanaaqday afkee furatay ilmahayga maxay idinka galay dhahda ilmaha iga cunina aniga hay cunina ilaaha iga taxadiray quruxdaas leeyahay dhaxdaas leeyahay naagaha Malaysia jooga hadii aan ii baahan yahay soo raadsadaano Atriisha Baadiyo waxba ma yareysanin waxay dhahda naagahi dharkeyga ila xiran jireen soortaada barte caaydaada yaqaana la dhahay soortaa barta sababtaada la halda Atriisha Baadiyo afkee furatay dharkee tuuratay waxa waay waxba ma reebanin midda kale waxa la yaab naagaha markay naag is qabtaan waxa kaliya ay ku caytamaan waxa waaye waxay ku qabteen dharkeyga ila xiran jirtay gurigeyga joogi jirtay aniga wax sii jiray aniga saas yeeli jiray naagaha dhan way ka wada siman yihiin waa midda la yaabay daawade dagaalka reer Malaysia ee soo noqday ma ahan mid sahlan ma ahan mid fudud kulay meesha ku dhamaan doono waa wada arkeena kulay meesha ku dhamaado ee sugayna dagaalkan mid sahlan ma ahan dagaalkan Atriisha Baadiyo dhaxday u soo xiratay way u soo xanjeeratay shaarci u soo istaagtay inay naag iska dhiciso wixii naag walba sida ugu aamusna oo naag walba afka ugu qabsanay ee kork iga soo koreen ee mar walba qolol inay iga soo furtaan ay caynayaan aniga igu mashquulsan yihiin ilmahayga ku mashquulsan yihiin ilmaha yaa layga cunin naagta ii baahan yani aniga hay soo raadsato kale Tiina Farayna waxay tirinayaa adigoo intaas yani 6 cunug soo dhashay waxa leedahay camal uura leeyahay hadda koowa walac noqday dhoocila iska dhigaysa camal waxba la isku ma yareysanin kolay Tiina Faray iyo Atriisha Baadiyo waa laba gabdho ilma adeer dadka iskaga xigaan qofka saddexeeye ka musalsalkooda iyo dagaalkooda dhax ku dhumaayo dhax ku haraayo markay dadka iskaga dhow yihiin ee dadka iska xigaan dagaalkooda iyo arimahooda waxa laga noqdaa dhaxdhaxaad ilaan meesha ku dagaalamayaan indhaha ugu jeedaa waxba ha ku darsanin biri meesha ku heshiinayaan ma ogaanaysid meesha ku dagaalameen iyo dagaalkooda wuxuu ku bilowday ma ogid ayagoo social media isku haysto oo kaliya aragteen dadka saddexeeye ka Tiina Faray iyo Atriisha Baadiyo dhaxdooda idinka dhax ku haraayo idinka dhax ku dhumaayo weliga waxa la dhahaa meel ku deeqin leesma deeqsiyo Atriisha Baadiyo Tiina Faray dadka ayaga iskaaga dhow marka dagaalkan meesha ku dhamaado suugeynaa usha Ilaahay dhaxdaha ka qabto Ilaahay dhaxdooda maslaxad qeyr qabto Ilaahay ha dhigo insha Allah